wafdigan ballaaran oo uu hogaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre qaybna ay ka hayeen xubno badan oo qayb ka ah golayaasha dawladda sida xildhibaano wasiiro iyo agaasimayaal ayaa soo gaaray casirliiqii maanta magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug waxaana garoonka diyaaradaha ee Wasaare ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu kamid yahay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo isugu jira wasiiro ka tirsan maamulka Galmudug iyo saraakiil ciidan ra'iisul wasaaraha ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo gaar ah oo ka tirsan ciidamada Djibouti ee qaybta ka ah AMISOM kuwaasi oo lagu sii diyaariyay garoonka isagoo intaa kadib salaan la dhex qaaday qaybaha kala duwan ee bulshada oo galabta soo buux dhaafiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha ayaa imaatinkiisan waxa uu ku soo beegmay xilli uu dhawaan furmayo shirka dib u heshiisiinta beelaha Galmudug oo dhammaan beergooyinka ay soo gaareen magaalada Dhuusamareeb kaasi oo loo madleeyahay inuu furmo 4 bishan oo ku beegan maalinimada Arbacada ah ee toddobaadkan ra'iisul wasaaraha iyo xubnihiisa golaha wasiirada ee soo gaaray magaalada Dhuusamareeb ayaa kulamo la qaadan doona qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiinta sare ee ahlu sunna wal jamaa waxaana la filayaa in ay ka wada hadlaan si gaar ah mas'uuliyiinta ahlu sunna xaaladda Galmudug oo muddooyinkii dambe siyaabo kala duwan isu bedeshay ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda ahlu sunna kala hadli doona arrimaha awood qaybsiga iyo sidoo kale xaaladaha kale ee Galmudug ka taagan oo ahlu sunna ay dhaliilo badan ka muujisay sida ciidamada dawladda ee la keenay deegaanada Galmudug iyo kuwa AMISOM oo markii hore ahlu sunna ay ka soo saartay bayaan ay ku diiday عبد الله وسمير ابو سلام